kulankan ay yeesheen guddiga joogtada ee golaha aqalka sare oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ku-xigeenkiisa labaad Mawlid Xuseen Guhaad ayaa warbixin looga dhageystay gudiyada dib u eegista dastuurka. ugu horreyn waxaa la gudagalay dhageysiga warbixinta gudiyada dib u eegista dastuurka oo golaha ka horjeediyay gudoomiyaha guddiga labada aqal ee dastuurka Senator Cabdi Xasan Cabawaare Qaybdiid ayuu haystay golaha shacabka waxyaabaha aan ka bedelno yararkan waxaa ka mid ahaa qodobadii meeshii aan lahayn wada xaajoodka u baahan oo heblaaye ahayd yaa nala ku soo baxay oo yiri oo masaalax kala dhex gashay markaasaan qodobadii dhan ka dayno waxaan u daynay iyagaaba imaan doona iyagoo dastuurkii oo qoran baa imaanaya marka si sahla aan u gudbino berri aan halkaan u raadino maanta intaan raadino berri aan ballan uga qabsano intaanoo kale loo akhrinayaa waana la wada haystaa hadda akhrintii hore oo 9 bilood hadda haysataan may waa 10 bilood baan u maleynaa November ka soo bilow 10 bilood oo la haystay ninkii hadda wax ka diyaariyay waa isleeyahay waa marka laakiin haddii ay timaado annagu waxaan ku shaqaynaynaa waa talada baarlamaanka waa qaadanaynaa wixii la soo jeediyo sidoo kale waxaa isna sharaxaad ka bixiyay warbixinta guddiga Senator Burhaan oo ka mid ah gudiyada dib u eegista dastuurka arrintan dastuurka maadaama arrin gooniya tahay oo labada aqal ka dhaxaysay in mataqaana habraacan procedure-kan aan soo diyaarino sahlaya fadhiyadoodu see noqonayaan kulamadu see noqonayaan yaa shir gudoominaya mataqaana see codka loo qaadaya see uu ku ansaxayaa mataqaana dooda imise akhrin buu marayaa مثلا xeerarkeena caadiga waa taqaanaan oo akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad iyo akhrinta saddexaad uu maraya sidii oo kale ka soo dhignay laakiin waa si faahfaahin waxoogaa arrin ku saabsan dastuurka oo kale baan iska waafajinay akhrinta koowaad akhrinta labaad saddexaad kale marka ujeedka habraaca laga leeyahay ugu muhiimsan ayaantii horena waan sheegnay markii labada aqal aan ka hor hadlaynay ujeedka ugu weyn waxa weeyaan in kala oo la ansixiyo maaha dastuurkii oo la ansixiyo dastuurkii doodiisa iyo howshiisa iyo dhibaatadiisa iyo doodihiisii waa harsanta ugu dambeyn gudoomiyaha aqalka sare ayaa soo xidhay kulanka waxa uu sheegay in kulanku uu sii socon doono maalmaha soo socda aad baan uga mahadcelinayaa waxa weeye waad soo shaqayseen waad dadaasheen waxaan ognahay dhibaatooyinkii jiray iyagoo dhibaatooyinkaasi jiraan aad ku soo shaqayseen waad ku mahadsantihiin annagana halkaa maalin noo dulqaatoona siiya saa dambana waad naga helaysaan kolkaa jawaab baad naga helaysaan haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkuna maanta halkaasuu inoogu xidhan yahay mahadsanidin Jawaaz Maxamed Hon Cable TV Muqdisho magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo war ma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha